munaasabada xil wareejinta madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkii SSC Khaatumo iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka cusub ee waqooyi bari Soomaaliya ayaa maanta waxay ka qabsoontay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya. munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan golihii wasiiradii hore ee maamulkii SSC Khaatumo, sidoo kale baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya. madasha ayaa ay xilka kula kala wareegeen labada madaxweyne ku-xigeen, iyadoona ay halkaasi kula kala wareegeen faylasha xafiiska. waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad goboleedka SSC Khaatumo, isaga oona kula dardaarmay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya in uu shaqadaasi laba jibaaro. dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya ayaa ku ammaanay shaqadii uu soo hayay muddadii 2 sano ee ku-meelgaarka ahayd madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka SSC Khaatumo, isaga oona halkaasi uga jeediyey mahadnaq dheer. maalintii mas-uuliyadda nolol dhiibayay waa la xusay oo maayirku waa xusay, wuxuu yiri mas-uuliyadda maanta la idin dhiibaya mid ma aragtay ma ahan tii la yaqaanay, mid la yaqaanay iska sugo oo tan iska sii wada. maalmaha waxaan xasuustaa anagoo shirayna oo waliba maayirka xafiiskiisa ku shirayna, marka meel badan oo lagu shiray lama haysan. qolaan noo soo gasho xilay madaaficii baa bilaabatay ka soo baxa. waan xasuustaa maayirku wuxuu yiri way waxaad noo sheegtaan meelaysan ku dhaceen aan tagno noo sheeg. markaas ay garan meel magaashu hadaba halkaygan fadhiinayna daayaan hawsheeda dhamaysan. xafiiska waxaan fadhinay gud dawladda hoose la sacano. maantana waxaan fadhinaa meel ilaahay mooyaane aan qof bini aadan aan ka baqayn. waa ilaahay mahadi halka meel ka horeysaan rabnaa 6 sano ka bacda inaan istaagno. hawshaas hadii mas'uuliyadda xilka haya lagu eegto inayna dhicin baa laga yaabaa, laakiin hadii lala shaqeeyo inay dhacdo oo ka sii wanaagsanaato u badantay. aan keen doonaa in ilaahay nala garab galo, annaguna aan u gudanno sidii aan ugu dhaaranay oo dastuurkeena inuu furayo dowlad goboleedka waqooyi bari iyo shariicada islaamkaba inaan ummadda aan mas'uuliyaddeeda qaadnay si daacadnimo leh, xilkasnimo leh waajibaadkooda u gudbino, gaadhsiino meesha la rabo in la gaadhsiiyo hiigsigooda nabadgelyo, barwaaqo iyo badhaadhe insha Allah billahi kariim. madaxweyne waa mahadsan tahay, waan kaaga mahadnaqayaa runtii xilkasnimadaada iyo degenaanshahaaga runtii halkan laga sheegay ama waa ka arkay muddo badan baan iska raaynaa, iyo sida wanaagsan muddada 2 sano aad u soo hogaaminaysay hogaamintaada idinkoo iskaashanaya madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne Cabdulqaadir aad u soo hogaaminaysay ummadeenna. marxalad adag baad runtii aad ku soo shaqayseen oo aan garan karayo duruufteeda. qof kasta oo ka mid ah shacabka iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka waqooyi bari ogyahay taad ku shaqaynayseen. waa Najiib Cabdilaahi, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Laascaanood.